السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت يا كرامة بدنا أطباني سلامينا وقت هذا ونكسن نرد في عني عافيمات تاما يعني دين رجين إنها يكسر دوادا كنال كان عافيماتك إدكترك عافيماتك غويسك مقال كان وحين كجت شوابينا كنا صوبان دينا إسلامر كان سيدا وقف في عن iyo waxyaabaha laga taxadari karo aynu ku sheegi doonaa muuqaalkan babaasiirta ayaa waxa jira dad badan oo ka tirsan bulshadeena ku xidhan kanaalkeenan oo in badan ka cabanaya ama dhibaato badan ay ka soo gaadho dadkaasi waxay doonayaan in laga tala bixiyo waxyaabaha inta badan dhibaateyn kara ama jeexi kara nabarkaas babaasiirtu ay samayso iyo waxyaabaha u fiican caloosha si marka arintaasi meesha ay uga baxdo ama waxyaabaha bogsiin kara ee u wanaagsan eriyadaas iyo goobtaas haddaba babaasiirta marka home remade loo samaynayo ama guriga lagu dabiibayo ee lagu daryeelayo qofka waxa aad ugu muhiim ah inuu tallaabooyinkan qaado marka kooban inuu aad u isticmaalo cuntooyinka leeyahay grainisku aad bay u fiican yihiin waa cuntooyinka galka iyo gas kale sida digirta galeyda haruurka iyo kuwaasi aad bay ugu fiican yihiin oo caloosha way socodsiiyaan laakiin mid baa khatar abuuri karta oo loo baahan yahay in aad looga taxadaro tusaale ahaan qofku sarreen buu samaystay ama digir buu samaystay ama galey buu samaystay waxa ay leedahay wax la yiraahdo fiber ama gas ama gal aynu naqaano haddii aan aad loo karin ama aan galka laga tuurin oo sideeda qofku u samaysto oo markaas calooshiisuna aanay aad u soconayn dhibaato weyn bay abuuri kartaa waxaanay keeni kartaa inay nabarka jeexdo oo caloosha ay aad iskugu taagto oo markaa khashinkiiyo adag iyo cuntadiiyo adag maadaama si fiican loo karin inay waxyeelayso marka si wanaagsan loo gariyo faa'iidooyin bay u leeyihiin caloosha waanay socodsiiyaan tamar awoodna waa laga helaa iyo nutritionka qofka ama nafaqaynta jidhkana waa u fiican yihiin dhinaca lafaha iyo dhinaca unugyada iyo dhinaca dareeraha kale ee jidhkeenaba aad bay ugu wanaagsan yihiin waxa uu shardiya laakiin in aad loo kariyo oo la bisleeyo markaas ayay tamartooda iyo tayadooda iyo waxtarkooduba ay wanaagsanaadaan waxa runtii qofka babaasiirta qaba aad looga wacyigeliya markastana aynu isku sheegnaa xanuunka loo yaqaan constipationka inuu galo waa calool istaaga inuu qofku calooshiisu ay noqoto mid taagan caloosha waxyaabaha lagu socodsiiyo in badan baynu tilmaamnay caanaha kamida caleenta cagaaran baa kamida cuntooyinka grainiska baa kamida kuwa aad baa lagu socodsiiyaa biyaha cad baa kamida caloosha lagu socodsiiyo oo qofku salaada hore ugu yaraan 1 litir ama 2 litir uu cabo oo subaxii calooshii soo maran aad bay u socodsiisaa caloosha socodsiinteeda ayaad ku dadaali doontaa haddii aad leedahay babaasir haddaba waxyaabaha inta badan babaasiirtu ay ka dhalan karto waxa kamid ah caloosha qofka taagnaata qofka inta badan gamcihiisu aanay aad nadiif u ahayn ama nadaafadiisu ay liidato qofku aan citiyaha iska jarin qayb bay ka tahay waxyaabaha kale ee kamid ah runtii babaasiirta loo aaneeyo waxa kamid ah fadhiga faraha badan caloosha taagan baa qodobka koobaad fadhiga faraha badan inuu ka qayb qaato ayaa faktarada qayb kamid ah hoos galaya meelaha kulul ama aadka u diiran qofku inuu ku fadhiistana dhaqaatiirtu arinta way ka digaan oo iyaduna waxay develop gareyn kartaa inay dhaawac ay keento arrimahaas ayaa dabcan loo aaneeya way jiraan faktarro kale oo dhinaca cuntooyinka qofku qaato qayb kamid way jiri kartaa mararka qaar in qofka ay waxyaabo kale ay ku sababi karaan ama caabuq siyaabo kale u dhici karo laakiin kuwaas ayaa common ama si guud inta badan looga hadlaa oo dhaqaatiirtu ay aad xoog u saarayaan haddaba caloosho la socodsiiyaa aad bay qofkana ugu fiican tahay oo caafimaadkiisa guud ahaan ay ugu wanaagsantahay dadka babaasiirta lehina inay calooshoodu isba taagto maaha dawada ugu weyn ee la sameynaya xataa nabarku haddii uu bogsado oo la daweeyo oo medical process caadi ah la mariyo oo dawooyinka caadiga ah la sameeyo oo xataa la jaro qofku haddii calooshiisu ay taagantay waxa uu markasta halis ugu jiraa babaasiir iyo dhaawac iyo inay jidhkiisa marka ay khashin kala duwan iyo walxo aan qurux badnayn ay ku baahan wadna xanuun badan buu develop gareyn karaa beer xanuun buu develop gareyn karaa kaliya xanuun buu develop gareyn karaa ama ku dhici karta waxa ku dhici kara sidoo kale
in babaasiirtaasi ay qayb ka noqoto. marka calool istaagu waa xanuunada ugu waaweyn buu ka mid yahay dadku aanay dhaadanayn. yacni xanuunka shaygu hadduu xanuun kugu sababi karo xanuuno waaweyn uu keeni karaa. waa laga yaabaa qofku markuu calooshu taagantay kaliya inuu raaxo darrad uun dareemo, laakiin aanu xanuun dareemayn oo soconayo oo shaqaynayo awood leeyahay. sida caadiyanka arrintaasi waxaa aad looga hortagaa in calooshu ay istaagto. qofku qaababka dabeeciga marka caanaha laga yimaado iyo caleenta cagaaran laga yimaado sometimes waxaa jira mar dhir loo isticmaalo caloosha in lagu socodsiiyo oo qaybta herbalistiska oo caloosha caadi u socodsiiyo. mar dawooyin loo isticmaalo oo dawooyin caadi loo sameeyo goobaha caafimaadka farmasiyada iyo dhakhaatiirtu as prescription ay u qoraan ayaa jiro iyagana la sameeyo. si kastaba ha noqoto calooshaadu xataa hadday kula galayso inaad geed dheer iyo geed gaabanba u fuul inaad caloosha socodsiiso meel kastay kaala dhaadhacayso haddaana caana helayn oo aanad markaa cuntooyinka jilcinaya aanad helayn oo aanad qudaar helayn. si kasta aad u helayso wax caloosha lagu socodsiiyo isku day. waxaynu bulshada aad uga digaynaa waxyaabaha inta badan sababi kara caloosha inay aad u taagnaato. waxaa ka mid a inuu qofku cunto keliya uu joogteeyo qayb bay ka tahay. waxaa ka mid a cuntooyinka carbohydrate bariiska iyo baastadu qayb bay ka yihiin. waxaa ka mid a waxyaabaha inta badan aadka looga digo inuu qofku aad u isticmaalo burka iyo bariiska nooca aan asliga ahayn ama aan dabeeciga ahayn ama aan organiga iyo natural sources ku yimi aan ahayn. kuwaasina caloosha qofka waa weyneeyaan oo beylkiisa iyo waxaas inta badan xaydh bay ku abuuraan, calooshana way istaajiyaan. intaa haddaad iska ilaaliso oo runtii qofku markuu galeyda iyo digirta iyo hadhuudhka isticmaalayana aad ay u jilicsanaato faa'iidana waa ka helayaa, calooshana waa u soconaysaa, calcium wacan iyo mineral fiicanna way ka heli doonaan jirkiisu. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa oo dabcan ay jawaabna u noqonaysay bulshadiina soo weydiinaysay waxyaabaha inta badan lagaga taxadari karo babaasiirta iyo sida loola saaxiibaya haddaan babaasiir qabo. lasii wadaaga oo usii sheergaraya bulshadaanu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.